caasimadda muqdisho waxaa ugu dambeyntii lagu biirin karaa mid ka mid a kuwa ugu saxmadda iyo ciriiriga badan adduunweynaha. buuqa iyo ciriiriga soo bilowda subax arooriyaad wuxuu sii jiri karaa ilaa gobolku ka dumo iyo caways dambe. jid walba oo ku yaala caasimadda wuxuu ugu yaraan saacad ka mida maalintii martigeliyaa ciriiri aan yarayn. ha yeeshee waqti aan la filayn in ciriiri laga filan karo waddooyinka oo habeenkii ah hadda waa iska caadi iyadana. waddada dheer ee jidka jaalasiyaadna kumaba jirto, waayo waxaa hadda loo tixgeliyaa jidka keliya ee xamar looga soo galo dhinaca koonfureed. si la mida dharaarta cad, waddadan waxay habeenkii mararka qaar noqotaa mid ka ciriiri badan maalintii. xalay oo kale waxay ahayd habeen aan inta ka dega gaarigii aan saarnaa aan go'aansaday inaan lug ku maro, waxaana sideeda oo kale lugtooda maalayay kontameeyo da'yar u badan iyo haween. badi waxaa ku jira daaqad u suuro gelinaysa inay ruuxli orod ku dhaafaan ilaa dhammaadka ciriiriga oo ku dhowaad 1 kilomitir jiitamayey. mana ahan inay jeclaayeen lugaynta, intooda badan waxay ka soo degeen baabuurtii ay saarnaayeen, iyaga oo dhowaanshaha halkii ay u socdeen iyo helidda dad ay isku meel u wada socdaan ku doortay socodka. waxaase jira in kale oo laba daran dhexdood uu wakhtigu dhex geeyey oo aan heli karin doorasho aan ka ahayn inay iska saarnaadaan baabuurka ilaa ay ka baxayaan ciriiriga. laakiin ma ahan habeen walba mid ciriirigu uu joogto ka yahay jidka dheer ee jaalasiyaad iyo dabcan inta badan waddooyinka magaalada. habeenada qaar sida laga bilaabo galabka khamiista ilaa caweyskeeda dambe iyo galabka sabtida oo habeenka axadda ay soo gelayso waa labada mar oo sida la sheego ugu ciriiriga badan waddooyinka caasimadda. dad badan waxay u sababeynayaan fasaxa labada maalin ee khamiista iyo jimcaha iyo bilowga maalinta koowaad ee toddobaadka oo qof walba uu magaalada usoo baxayo, midda keenaysa ciriiriga waddooyinka. waxaa kale oo xusid mudan in lagu baraarugo gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada oo iyagana labadaas goor magaalada soo gala intooda badan. si la mid ah gaadiidka waaweyn ee dhammaadka toddobaad walba isku dhereeriya jidka dheer ee 21 Oktoobar ilaa warshada caanaha u dhexeeya, iyaga oo sugaya inay caways dambe u hoydaan dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale ugu wacan ciriiriga. ha yeeshee waa helid la'aanta nidaamka taraafikada waddooyinka oo aan gebi ahaanba ka jirin inta badan laamiyada caasimadda siiba xilliga habeenkii, sababta ugu weyn oo ciriiriga iyo buuqa ugu wacan caasimadda Muqdisho. in baabuurta waaweyn loo fasaxo waddooyinka wixii ka dambeeya habeenka 3 saac oo aysan maalinta cad la isticmaalin jidadka baabuurta dadweynaha waa xalka ugu fudud. haddiise la iska indho tiro tallaabooyinka xalka u noqon kara ciriiriga, waxaan shaki ku jirin in shacabka oo keliya aysan noqon doonin kuwa ku dhib muta, balse ay dareemi doonaan madaxda ugu sarreysa gobolka iyo dowladda dhexe.